Excellency President Uhuru Kenyatta, Excellencies, Head of States and Governments, distinguished guests, ladies and gentlemen, I am pleased to join this historic and remarkable first conference on sustainable blue economy. mudana madaxweyne Uhuru Kenyatta, madaxda dawladaha iyo xukuumadaha, martida sharafta, mudanayaal iyo marwooyin. waxaan ku faraxsanahay inaan qayb ka noqdo shirkan taariikhiga ah ee ku saabsan dhaqaalaha badaha oo markii ugu horeysay lagu qabanayo magaalada Qudxuun ee Nairobi. aan walaalkay madaxweyne Uhuru Kenyatta ku bogaadiyo ugana mahad celiyo qabanqaabada shirkan muhiimka ah ee ujeedkiisu yahay soo bandhigidda fursadaha tirada badan ee dhaqaalaha badaha iyadoo haddana la dhowrayo biyaheena si ay uga faa'iideystaan jiilasha soo socda. Soomaaliya waxa ay noqonaysaa tan ugu badan ee ka faa'iida dhaqaalaha badda ee xooggan isla markaana waara. The longest in continental Africa. An upwelling zone, which is one of the most productive in the region, offers endless potential for ocean-based industries. Soomaaliya waa wadan leh muhiimad istiraatijiyadeed waxaana leedahay xeebta dhirkeedu yahay in ka badan 3,300 oo kiiloomitir oo tan ugu dheer qaaradda Afrika kana mid ah kuwa ugu wax soo saarka badan gobolka fursad weyn u ah warshadaha iyo maalgashiga la xiriira xeebaha waxaanu leenahay kayd kheyraad oo aan la taaban sida kalluunka saliidda gaaska badda macdanta iyo kheyraadka kale ee badda maamulkaygu waxa uu garowsan yahay in kheyraadka baaxadda weyn ee wali la adeegsan ay wax badan ka bedelayaan dhibaatooyinka saboolnimada cunto la'aanta biyo yaraanta baahiyaha tamarta iyo caqabadaha shaqo la'aanta sidaas daraadeed waxaanu dejinaynaa istiraatiijiyad ballaaran si aan uga faa'iideysano dhaqaalaha ka imaanaya badda annaga oo dhowrayna deegaanka wasaaraddeena dekedaha iyo gaadiidka badda ayaa ku howlan sidii u abuuri lahayd iskaashiyo lagu abuurayo laguna hormarinayo dekedaha yaga istiraatiijiga ah sarana loogu qaadayo isu socodka gaadiidka badda cuntada badda barashada badda sifaynta biyaha badda iyo guud ahaan horumarinta macdanta badda wasaaradda kalluumaysiga ayaa iyaduna u xil saaran horumarinta kheyraadka badda waxaanu si buuxda uga warqabnaa xiriirka ka dhaxeeya nabadda amniga iyo horumarka waara The long period of conflict has no doubt negatively impacted the growth and development of ocean resources in Somalia. muddadii dheereed aan khilaafka ku jirnay ayaa shakilaan ah in si taban u saameeyo kobaca iyo horumarinta kheyraadka badda ee Soomaaliya mudanayaal iyo marwooyin mar haddiiba aanu ka hadlayno abuuridda dhaqaalaha badda oo waara iyo baahida loo qabo maalgashi iyo warshado waxa laga maarmaan ah inaanu marka koowaad ka hadalno dhaqdhaqaaqyada aan sharciga ahayn ee ka socda xeebaheena illegal activities along our coastline and unsanctioned exploitation of our marine resources by foreign fishing fleets illegal charcoal trade to foreign markets caqabadaha deegaanka saameynta ugu badan ku leh xeebta Soomaaliyeed waxa kamid ah maraakiibta shisheeye ee aan si sharci ahayn uga kalluumaysta ka ganacsiga dhuxusha aan sharciga ahayn iyo in qashin sun ah lagu soo daadiyo waxaan rajaynayaa in qodobada ka soo baxay shirkan uu qayb ka ahaado in la iska kaashado xakamaynta dhammaan howlaha aan sharciga ahayn ee ka socda xeebaha maamulkaygu waxa uu sii wadi doonaa inuu abuuro iskaashiyo caalami ah si loo xalliyo arrimahan waxaan aaminsanahay in haddii la helo daahfurnaan iyo iskaashi sarreeya lagana faa'iideysto horumarka dhanka tiknoolajiyada iyo awoodda satellite-ka aan awood u yeelan doono xakinta dhaqdhaqaaqyadan mudanayaal iyo marwooyin nabadda iyo amnigu waxa ay ka mid yihiin ajendayaasha ugu muhiimsan ee maamulkayga waxaan xoojinaynaa dowladnimada sare u qaadaynaa iskaashiga dhinaca amniga si loo helo xasilooni oo ay ka mid tahay in la helo bad weyn iyo xeebo nabad ah sidoo kale waxaanu ka shaqaynaynaa inaanu xoojino adkaysiga dadka si loo yareeyo saameynta xun ee isbeddelka cimilada iyo abaaraha joogtada ah dadaaladani way bilowdeen waxaana dirbo muuqata in guulo la gaaray mudanayaal iyo marwooyin waxaan fursadan uga faa'iideysanayaa inaan xuso in Soomaaliya ay diyaar u tahay iskaashiyada iyo maalgashiyada la xiriira kheyraadka badaheena hodanka ah mahadsanidin marine resources. I thank you for your attention.